بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمتين maanta إن شاء الله تعالى waxay ku saabsan tahay qabyaalada marka hore waxaan fahmaynaa ama aan kala saaraynaa qabiil iyo qabyaalad farqiga u dhaxeeya qabiilku shariicada islaamka waxay reebtay waa qabyaalada islaamka intuu imaanin ka hor qabla islaam dadkii jaahiliga ee noolaa waxay u degnaayeen qabiilo oo ay isku dagaali jireen oo isku dulmin jireen qabiilkii oo dadka ay ka dhasheen in si qaldan loo isticmaalo oo si aan waafaqsanayn shariicada islaamka si aan waafaqsanayn in loo isticmaalo ayaa la yiraahdaa qabyaalada markastana waxa xun waa qabyaalada ee qabiilka ma shariicada islaamkuna qabiilka waa waxay dadka ay ka dhashteen waxa shariicadu ay diiday ee xarimtay waa qabyaalada marka sidaas daraadeed insha Allah mawduucan maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa qabyaalada Ilaahay subhanahu wa ta'ala qabiilka sida uu u jideeyay iyo hadafka uu ka leeyahay wuxuu ku soo koobay hal aayad oo fi suurat al-hujurat ku jirta saan ognahay ba anaga maanta qabiilku waxaan u isticmaalnay in aan isku fadilno aan ku kala sareyno ama aan isku ayno ama aan isku dagaalno marka sidaas aan ka dhiganayna waa waxay khilaafsan tahay sidii islaamku u jideeyay Ilaahi subhanahu wa ta'ala markii uu ka hadlayay wuxuu dhahay ya ayuhan naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha dad waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadig macna dadku waxay ka soo jeedaan lab oo ah nabiyullaahi aadam alayhi salaam iyo dhadig oo Hawa labadaasina waxa asal ah labka oo nabiyullaahi aadam alayhi salaam Hawa Ilaahi wuxuu ka abuuray lafta aadam marka dhamaanteena Ilaahi wuxuu naga dhaliyay hooyo iyo aabe oo ah aadam iyo Hawa marka kala saaritaanka ay dadka iskala saarayaan iyo sida ay isu liidayaan midna meesha yani asalka eed kama saarayso way dhamaanteena asalkiina waa hooyo iyo aabe Ilaahi wuxuu raaciyay waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'il Ilaahi wuxuu idinka yeelay shu'ub qaramo iyo qabiilo sababta Ilaahi uu sameeyay Ilaahi uu tilmaamay xikmada uu ka lahaa wuxuu dhahay wa qabaa'ila lita'arafu inaad isku aqoonsataan aad isku kala garataan ma ahan inaan isku liidno seen anaga u isticmaalnay oo aan isku fadilno oo aan isku liidno Ilaahi xikmada uu ka lahaa waxay ahayd lita'arafu marka intaas Ilaahay markuu uu tilmaamay dadka noogu karaamada badan dadka noogu fiican noogu sareeya oo anaga maanta aan isku kala saarno waxaan dhahnaa kalimaadkan waxa kamid ah hebel waa laan dheere hebel waa laan gaab mina anaga ula jeedna hebel wuxuu ka dhashtay qabiil markaasi xoogan ama qabiil anaga aan weynin ayuu ka dhashtay mid kale aan gaabkan waxaan u isticmaalnaa inuu yahay qof qabiil hooseeya ka dhashtay miisaankaas aan u isticmaalno dadka aan ku kala saarnana waa miisaan qaldan way miisaanka saxda ah ee dadka lagu kala saaro ee dadka ay ku kala baxaan Ilaahay uu tilmaamay Ilaahay wuxuu dhahay inna akramakum indallahi atqakum midkiina ugu karaamada badan ugu fadli badan alla agtiisa waa midka ugu cabsida badan marka saas daraadeed midka laan dheeraha oo noogu wanaagsan anaga laan dheeraha dhahno waa midka taqiga Ilaahay ka cabsada sidii doon loo liido qabiilkiisa sidoo raba uu hooseeyo sidii raba ha u tira yaraadaan qofkaas ayaa laan dheeraha qofka laan gaabka ana waa qofka faajirka ah oo Ilaahay aan ka baqin ciduu doonaha ka dhashto lacagtu doonaha haysto dadkiisna sayrawana u tira badnaadaan midka liita waa midkaas midka ugu karaamada badanne waa midka ugu taqiy badan ninka uu ka cabsi badan yahay Ilaahay uu kaga dhow yahay uu ka wanaagsan yahay marka miisaanka saxda ah la rabo inaan qaadano oo aan ku dhaqanno waa miisaankaas qabiil ka fiican ma jiro jufu kale ka fiican ma jirtay laakiin waxa jira shakhsi ka sareeya jira miisaanka kala sareynta iyo dadka say u kala sareeyaan lagu fiirinayno waa miisaankaas Ilaahay uu tilmaamay oo ah miisaanu taqwa miisaanka cabsida
marka midkeena noogu karaamada badan noogu sharafta badan waa midkeena nooga cabsida badan ilaahay noogu dhow marka qabiilka sida ilaahay u jideeyay iyo xikmadii ilaahay u jideeyay waa midaas mid anaga aan isticmaalno oo ah inaan isku liidno oo inaan isku fadilno miisaankaas anaga aan isticmaalno waa miisaan khaldan miisaanka saxan oo aan rabno inaan dadka dhaxdooda aan u isticmaalno waa miisaanka ilaahay u jideeyay oo ah inna akramakum indallahi atqaakum midkeena noogu karaamada badan noogu sharafta badan inuu yahay midka noogu cabsi badan inuu yahay يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني دتك قبيلة إنه برتان النصر كود إنه برتان ومقصد كمدة مقاصد الشريعة والشريعة آدي وإلى لسه إن خفك يعني وبرتو النسب كيسة قبيل كيسة إنه يقانو يعني وحهم معه قبيل كائنة تقاند نسب كائنة تقاند ووحو ناكسن يعني وحل الديدة الشريعة الديدة إن نفهمنا وحيتها هي قبيل كي إن لبدله أو أن كدقنا قبيلة qabyaaladu waa in qabiilkii loo adeegsado sidii ilaahay u jideeyay si aan ahayn si khilaafsan in loo isticmaalo ayaa qabyaalada nabiguna kaleey salaatu wasalaam uu bartay yani wuu dhiirigeliyay in la barto nasabka nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam ta'allamu min ansabikum ma yasiluna bihi arhamakum nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay barta nasabkiina waxaad ku xiriirisaan qaraabadiina yani qofka markuu nasabkiisa u yaqaano uu yaqaan dadka xigtidiisa dad sida u kala xigaan adeer abti yani waxay ay si dhaleen uu garan karaa laakiin qofka haduusan nasabkiisa aqoonin waxa ka dhalanaysa in ahkaam badan oo shariicada ah qofkii inuu garan waayo salahaan qofka haduusan nasabkiisa aqoonin ma fahmi karo yani dumarka midda uu guursan karo iyo midda uusan guursan karin inaad garatid waxa ku banaan oo dumarka ku banaan inaad guursatid iyo ku aan ku banaaneen waxa ka horeysa inaad taqaan nasabka marka saas daraadeed nasabka nabiga aad ayuu u dhiirgeliyay in la barto sidoo kale dhaxalka qofka hadii nasabkiisa uusan aqoonin dhaxalkana sidii kala noqonaya ma garan karo waxa waajib ah marka qofka si oo taka ama ahkaamta shariicadaas uu yaqaano inuu barto nasabkiisa saas daraadeed ayuu nabiga leeyahay salaatu wasalaam yani barta nasabkiina waxaad ku xiriirisaan qaraabadiina yani qaraabada in la xiriiriyana shariicada ayaa amartay النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu ku tilmaamay qofka qaadi riximka ah inuu san jana galin qofka gooya qaraabada marka qaraabada in xiriirisidna waxa qasab ah in taqaan nasabkaaga nasabka marka taqaanid waad garan kartaa dadka qaraabadaada ah xigtadaada ah yani النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu tilmaamay in sadaqada la siiyo qaraabada waxay leedahay laba ajir silatul arham ku jirta in oo qaraabada xiriirisay iyo sidoo kale fadliga sadaqada markaas daraadeed nabi shariicaduna aad ay u boorisay in la barto dadku inay bartaan nasabkooda inay yaqaanaan sidoo kale Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ayaa waxa laga wariyay inuu yiri ta'allamu min al-ansabi ma tasiluna bihi arhamakum yani barta nasabkiina waxaad ku xiriirinaysaan qaraabadiin wa ta'rifuna bihi ma yahillu lakum wa ma hurima alaykum min an-nisa'i iyo wixii dumar ah markaas idin banaan oo aad guursan kartaan iyo waxaan idin banaaneen thumma intahu kadibna aad ka hartaan يعني aadan si dabraacin intaas aydan si xad gudbino kadib nasabkii inaad barataan oo aydan isku faanin oo aydan iskaga dhigin wax aad ku kala sareeysan nabiga kaleey salaatu wasalaam wuu reebay in yani dadka isku faanaan nasabka in isku faanaan nabi waati ula hadiiskii yani dhowr arimood umadeeda kama tagayso waxaana ku jira kufri waxaana kamid ah qodobada nabigu uu sheegay in la isku faano nasabkan la isku faano yani nasabkii awooyaashin in nasabkii aan ka dhalanay inaan isku faano waxa ku jirta buu nabi sallallahu alayhi wasallam kufri umadana kama tagayso marka dhamaan ahadiistaas waxaan ka fahmaynaa in nasabka la isku faano in nasab seegashada qaraabada iyo dadka inaad ku faantid dhamaantood inay soo hoos galayaan yani at-ta'assub al-qabaliyah in qofkii uu ku dhago nidaamka qabyaalada ta'assubkuna waxa waay in qofkii qabiilkii uu raaco si indhalaan ah oo wax kasta ay sameynayaan wixii wanaagsan iyo wixii xun inuu yiraahdo qabiilkayga marka qofku wax lagu raacayo oo lagu adeecayna waa wax macruufka ah marka qabiilkaaga si indhalaan ah inaad u raacdid oo wax kasta ay sameeyaan garabkooda aad istaagtid waxa ka dhalanaysa in xikmadii iyo nidaamkii alle u jideeyay qabiilka inaad khilaaftid oo wax uusan ilaahay jideynin markaasi aad raacdo wax aan banaanin qabiilka ay sameeyaan aad ku dabraacdi taasoo maalkeed uu noqonayo in wada xun ay ku geeyaan markaas daraadeed walaalayaal in dhamaanteen waxaan isku dardaarmeynaa gaar ahaan hadaan dhalinyarada in waaqicii anaga aan ku jirnay oo nidaamkii qabyaaladiisna
oo aan ku jirnay hadana Soomaali yani qabyaalada dhibaatada ay leedahay waan naqaan oo si practical ah ay noo haysataa way dhibaatada wax maanta aniga halka aan taaganay na keenay waa nidaamka qabyaalada marka hadana dhalinyarada waxa la noogu baahan yahay in nidaamkii hore u soo jiray ee ku dhisnaa qabyaalada in jeclaysiga inaan anaga aan bedelno oo qabiilka aan u isticmaalno sidii uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u jiday taasina waxay keenaysaa in wadadii saxneed aan raacno dhibaatada iyo waxa maanta taaganna aan ugu bixi karno in wadadaasi qabyaalada ah aan ka leexano marka fariinteen maanta intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh